uga wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo munaasabadan furitaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynaha oo howlo degdeg ah oo la xiriira shaqada amniga dalka awgeed aanay u suurtagelin inuu ka soo qayb galo munaasabada sabadan qiimaha badan balse anigoo ah ra'iisul wasaarihiisii ii soo wakiishay mudane gudoomiye mudanayaal iyo marmooyin sida aad la socotaan dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo labadii sano ee la soo dhaafay waxay aasaaska u dhigtay hanaanka dawladeed oo leh hiigsi dheer kaasoo ku salaysan himilooyin waaweyn ee qorshaha horumarinta qaranka iyo barnaamijka xukuumadda lagu ansixiyay oo lagu meel mariyo afarta tobood oo ah hanaanka ay u agaasiman tahay shaqada xukuumadda federaalka Soomaaliya himilooyinkan waad ogtihiin oo ay xukuumadda iyo kulligeenba aan wada hiigsanayno waxaa ka mid ah dib habeynta iyo tayeynta dhammaan hay'adaha dalka gaar ahaan hay'adaha amniga qaranka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha kordhinta dakhliga dalka iyo hirgelinta barnaamijka geedi socodka deen cafiska dalka si uu dalku isugu filnaado dhamaystirka dib u eegista dastuurka federaaleynta dalka iyo qabashooyin ka doorashooyinka sidoo kale gaarsiinta iyo daadejinta adeegyada bulshada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin caafimaadka biyaha korontada iyo waxbarashada himilooyinkaas iyo kuwo kale oo ku qeexan barnaamijka xukuumadda ee dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa dalka u horseedi doona mustaqbal ay ku noolaadaan jiilalka inaga dambeeya taasoo macnaheedu tahay in aan maanta dhammaanteen haysano fursad aan taariikhda dalka uga geli karno baaldahab ah waa haddii sidii horey la sheegay aan u wada guntanno xaqiijinta himilooyinkaas aynu qaadnay wadiiqadii lagu gaari lahaa mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin amniga iyo cadaaladda oo ah tiirka koowaad ee higsiga xukuumaddeena ayaa waxaa xoogga lagu saaray hirgelinta qorshaha amniga qaranka fulinta qorshaha kala guurka amniga iyadoo si weyn loo dardargeliyey isku dhafka ciidamada qaranka si loo helo ciidan astaan qaran leh kuwaasoo ku howlan fulinta howlo loo qorsheeyey waxayna xukuumaddu si buuxda ugu guulaysato inay hirgeliso tirinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan hore loo sameyn ilaa hadda dawladda Soomaaliyeed waxay diiwaan gelisay 16,203 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mid walba xuquuqdiisa ay si toos ugu dhacdo akoonkiisa gaarka oo mobilkiisa ku helo hadda waxaa gacanta lagu hayaa xaqiijinta inta hartay iyo tayeynta iyo taakulaynta dhammaystiran ee dhammaan ciidamada qalabka sida dawladdu waxay ku haminaysaa in dib u habeynta ciidamada oo dhan si aan uga adkaano argagixisada la soo afjaro dhammaadka sanadkan haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale dawladda Soomaaliyeed waxa ay bilowday inay la wareegto goobo waaweyn oo markii hore ay hayn jireen ciidamada walaalaheena ee noo soo gurmaday AMISOM sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in booliska Soomaaliyeed uu bilaabay qorshe cusub oo lagu dardargelinayo sugidda amniga caasimadda waan mar dhow rajeynayo inuu miro dhal noqon doono waxaa kaloo iyadana idin xaqaajinayaa inay ciidamada xoogga dalkuna ku
ku howlan yihiin howlgallo lagu xoojinayo sugidda amniga caasimadda. waxaa markaa maragma doonta ah inuu amnigu yahay mas-uuliyad wadareed uu qof waliba oo naga mid ihi door ku leeyahay. marka iyadoo oo ay ciidamadeennu ku howlan yihiin howlgallo baaxad leh oo lagu baacsanayo argagixisana, haddana muwaadin walba waxaa laga rabaa sidii gabadhii halkan soo istaagtay inuu doorkiisa qaato. mudane guddoomiye, ciidamadeennu waa naftood hurayaal taariikh cad ku leh sooyaalka ummadda Soomaaliyeed, waxaana ku kalsoonahay inay ka midho dhalin doonaan howlgallada socda iyo dib habeynta, isla markaana ay shacabkeennu u suuro gelin doonaan inaan ku noolaano nabad iyo xasilooni taam. waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo golaha aqalka sare iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay xukuumadda ka go'an tahay in la dhammaystiro ciidan tirsan, toosan, tayaysan oo matali doona shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay yiraahdo. mudane guddoomiye, muddadii koobneed ee jirtay dowladda uu hogaamiyo madaxweynaheennu, howlaad badan ayaa laga qabtay dhanka dhaqaalaha, waxaana xoogga saarnay kor u qaadista dakhliga dalka iyada oo la tayeynayo nidaamka maamulka maaliyadda dalka. waxaa dalka loo sameeyey miisaaniyad isu dheelitiran, taasoo u suuro gelisay in xukuumaddu fuliso barnaamijkeeda aanana qaadan wax dayn ah oo aanan dalka gelin dayn. waxaan rabaa inaan xasuusiyo aqalka sare iyo shacabka Soomaaliyeed deynta dunidu ay nagu leedahay oo ku dhow 5 bilyan ka sokow dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyo halkan waxay ugu timid 100 milyan oo deyn ah way ku lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ama shaqaale ama ciidan ama qandaraas bixiye. hufnaanta maamulka maaliyadda dowladdeena awgeed waxaan ku guuleysanay 2 sano aan joognay dowladdu inay bixiso mushaarka cid walba oo ay ka mid yihiin xildhibaanada halkan fadhiya aanayna qaadan wax deyn ah. waxaan dib u habeyn ku sameynay habka ururinta canshuuraha oo hal meel oo keliya aan isugu keennay wasaaradda maaliyadda oo ah meesha la isugu keenay iyo bangiga, halka markii hore hay-ado badan oo kala duwan ay maamuli jireen. markii aan ra'iisul wasaaraha noqday 21 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda ayaa mid waliba lacag qaadi jirtay. mashruucaas isaga ahi waa soo afjarmay. sidoo kale waxaa la xoojiyey in kharashaadka dowladda oo dhan laga wada bixiyo hal khasnad oo ah khasnadda guud ee dowladda. sanadkii la soo dhaafay dakhliga dowladdu wuxuu kor u kacay 30% marka loo eego sanadkii ka horreeyay. dakhliga sanadka 2017 waxa uu ahaa 142 milyan iyo bar, halka sanadka la soo dhaafay uu gaaray 184 milyan. waa midka laga aruuriyo ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada kaliya. waxaan rajaynaynaa in sanadkan 2019 uu dakhligu gaaro 190 milyan. waxaan idin xasuusinayaa 3 bilood oo sanadkan hadda ugu horeysay waa 3 bilood ee ugu sareysay dakhli aruurinta ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay. sidoo kale waxaan dadaal badan oo miro dhal ah gelinay sidii dalka loogu raadin lahaa in la ka cafiyo deymaha culus ee la ku leeyahay. deymahaasi waxay caqabad ku yihiin in dalku helo dhaqaale looga shaqeeyo horumarinta dalka. iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxa dowladda madaxweyne Farmaajo ay heer wanaagsan oo gabagaba ah soo gaarsiisay barnaamijka deyn cafiska aan kala shaqeyno hay'adda lacagta adduunka. waxaan ka soo baxnay dhammaan shuruudihii looga baahnaa dowladda Soomaaliyeed. waxaana bisha soo socota haddii Ilaahay yiraahdo la saxiixan doonaa qandaraaskii ugu dambeeyay ama heshiiskii ugu dambeeyay oo ahaa kii deynta nalo kaga cafilaa haddii Ilaahay yiraahdo.
hiigsiga xukuumadda iyo dowladdu waa inaan kulligeen gaarno deyn cafis hordhaca sanadkan dhammaadkiisa 2019 ama bilowga sanadka 2020 waa haddii kulligeen aan ka wada shaqayno marka deyn cafis hordhaca aan helno waxaa inoo furmi doona ilo dhaqaale oo ay ka mid yihiin deeqaha horumarineed oo aan ka heli doono bangiyada adduunka iyo bangiyada horumarinta adduunka waxaa kale oo ay ganacsatada Soomaaliyeed heli doonaan iyo cid kasta oo danaynaysa inay dalka maalgashadaan inay isticmaalaan hay'adaha hoos yimaada bangiga adduunka oo ay ka mid yihiin IFC iyo MIGA oo hadda naga xiran deynta nala ku leeyahay awgeed dib u habaynta iyo isla xisaabtanka lagu sameeyay dhanka dhaqaalaha 2 sano ee la soo dhaafay waxay keentay inay dunidu bilowdo in la aamino waxaan miisaaniyad toos ah oo gaaraysa 100 milyan oo euro ka helnay midowga Yurub taasoo 15 milyan oo ugu horeysay ayna soo gaartay 34 milyan oo ku xigtayna aan sugayno bilowga bishan soo socota bangiga adduunka isaguna wuxuu inagu abaal mariyay horumarka aan sameynay awgeed dhaqaale gaaraya 140 milyan oo 80 milyan oo ugu horeysay la ansixiyay mudane gudoomiye si looga mar dhaliyo dib u habaynta amniga iyo dhaqaalaha waxaa muhiim ah inaan ogaano in Soomaaliya hanaanka dawladeed ee federaaliga ah ay qaadatay iyadoon la diyaarin shuruucdii iyo habraacyadii loogu guuri lahaa hanaankaas ku cusub jamhuuriyadda haddaba mudane gudoomiye dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka go'an iyadoo ka duulaysa ballantii ay qaaday 2017 inay diyaar garow xoogan u gasho samaynta shuruucda iyo xeerarka doorashooyinka iyo federaaleynta daajijinta awoodaha dowladda iyo adeegyada bulshada in la helo Soomaaliya federaali ah nabdoon hiigsanaysa barwaaqo waxay si cad ugu qeexan tahay dastuurka kumeel gaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka oo hoosta ka xariiqay in geedi socodka dib u hanashada dowladnimada iyo dimuqraadiyeyntu ay udub dhaxaad u yihiin dhismaha dowlad awood leh iyadoo laga duulayo muhiimadda ay leedahay dhamaystirka dib u eegista dastuurka ayaa waxaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada u suurta galay inaan go'aan siyaasadeed ka gaarno nidaamka doorasho iyo deegaan doorasho ee dalka iyo sidoo kale qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee dalka Soomaaliyeed mudane gudoomiye waxaan dhowaan dhamaystirnay waan labada qal u soo gudbin doonaa indasha sharciyeedyada doorashooyinka iyo sharciga asxaabta oo dib u eegis lagu sameeyay inagoo la tashanayna dhammaan asxaabta siyaasadeed ee dalka si loo fuliyo doorasho qof iyo cod ah annagoo marka hore halkan mar kale tacsi uga diraya eheladii iyo ummadda Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka geeriyooday wasiirkii hore ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Allah jannadii ka waraabiye oo dadaal ku bixiyay sidii dastuurka loo dhamaystiri lahaa ayaan si loo qabyo tira dastuurka kumeel gaarka ah waxaan diyaarinay dhammaan xulashooyinka qodobada dastuurka ee ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ka wada xaajoon doonaan oo ay ka mid yihiin hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka qaab dhismeedka hay'adaha qaranka iyo asteynta awoodaha dowladda hanaanka dowladeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya qaabaynta iyo qaangaarsiinta dowlad goboleedyada kumeel gaarka ah maqaamka ay magaalada Muqdisho ku dhex yeelanayso hanaanka federaalka waxaan mar kale
gudoomiye adigii dhammaan shacabka Soomaaliyeed xasuusinaya in ay dawladda federaalka soo dhamaystirtay dhammaan xulashooyinkaas oo ay u dhiman tahay in lagala fariisto dawlad goboleedyada lagala heshiiyo si loo fuliyo shaqadii nagu aadaneed inteedii badan waxaan idinkugu bishaareeynayaa anigoo ka wakiila madaxweynaha inaan soo dhamayno sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu horay u ballan qaaday dhab u heshiisiin ummadda Soomaaliyeed inay hesho waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee hiigsiga dawladda iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay sidoo kale xukuumadda diyaarisay hannaanka dhab u heshiisiinta qaranka iyo qorshe howleedkiisii fulineed oo dhammaystiran waxaa dhanka kale naga go'an inaan ka shaqayno midnimada ummadda Soomaaliyeed kana mira dhalino mudana gudoomiye mudanayaal iyo marmooyin horumarinta dhaqaalaha amniga iyo cadaaladda xaqiijinta geedi socodka siyaasadda loo dhan yahay waxay horseedayaan bixinta adeegyada bulshada oo ku dhawaad 30 sano aysan jirin dawlad awood u leh bixinta adeegyada ay bulshadu u baahan tahay waxaa xukuumadda u suurto gashay inay la wareegto iskuulo inay la wareegto isbitaallo ay shakhsiyaad iyo shirkado gaar loo leeyahay ay markii hore gacanta ku hayeen waxaa sida kale iyana inoo suurto gashay in wadooyinkii waaweynaa ee Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Afgooye isku xiraayay iyagana loo helo dhaqaale lagu dhiso oo aan mar dhow dhagax dhignay lana bilaabayo usbuucyada soo socda dhismahoodii waxaa kaloon rabaa inaan uga mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed sida ay uga qayb qaateen mashruuca isxilqaan taas soo fududeysay inuu gabagabo marayo tiyaatarkii qaranka dhismo ay ku socoto maktabadii dhismo ay ku socoto madxafkii dhismo ay ku socoto dhammaan taalooyinkii Soomaaliyeed oo ahaa taariikhdan waxaa la diyaariyay lana meel mariyay habraacyo siyaasado iyo shuruuc lagu maareeyo arrimaha shaqaalaha rayidka ee dawladda iyadoo la tiriyay lana diiwaan geliyay dhammaan shaqaalaha rayidka ah aynahana helaan xuquuqdii ay lahaayeen si ay u gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday mudana gudoomiye waxaan ku xasuusinayaa in diiwaan gelinta shaqaalaha rayidka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida lagu sameeyay hal nidaam oo la ogaanayo qof waliba meesha uu ka shaqeeyo iyo qaabka uu shaqeeyo waa horumar ay ku tallaabsatay dawladda aan ka wada tirsannahay mudana gudoomiye sida uu madaxweynaha sheegay in badan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa saldhig u ah dalka Soomaaliya uu xiriir wanaagsan la yeesho dalalka caalamiga ah oo dhan iyada oo iskaashigoodu ku qotomo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed waxaan idinka iyo shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya inaan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimadeena madax banaanideena ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba mudana gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin xiriirka aan la leenahay wadamada derisku waa mid ku dhisan deris wanaag iyo iskaashi xooggan oo ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman ee dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada mudanayaal iyo marwooyin sanadka 2019 waa sanadkii aan ka mira dhalin lahayn hadafyada waaweyn ee dawladda sida u diyaar garowga doorashooyinka 2020-2021 dhamaystirka dastuurka dhamaystirka dib u habeynta dhaqaalaha dhamaystirka dib u habeynta amniga iyo dhamaystirka hay'adaha bixiya adeegyada bulshada iyo sidoo kale xaqiijinta in dhammaan halbeegyada loo asteeyay looga miro dhaliyo shaqooyinka baaxadda leh ee ay dawladdu wato
haddaba mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn si haddaba himilooyinka dowladda Soomaaliyeed ay hiigsanayso looga mira dhaliyo loona meel mariyo waxa xukuumaddu labadii sano ee la soo dhaafay u gudbisay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waan rajeynayno iyaguna idin soo gudbiyeen 29 hindis sharciyeed waxaan si xushmad leh xildhibaanada aqalka sare uga codsanaynaa in la tixgeliyo meel marinta shuruucda idin hortaalla oo dhammaantood lagaba maarmaan u ah dib u dhiska dalka nabadeynta arrimaha la xiriira geedi socodka federaaleynta dalka mudane guddoomiye ku-xigeenada iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh aqalka sare maanta waanu taagannahay furitaankii kalfadhiga shanaad ee aqalka sare waxaan qirayaa in fursado waaweyn ay jiraan taasoo keeni karta inaan qorno taariikh cusub innagoo iska kaashanayna sidii aan caqabadaha ina hor yaalla oo iyaguna dhab ahaan u jira ugu bedeli lahayn fursado annagoo danta shacabka ka hormarinayna danta gaarka ah oo mar walba danta shacabka ka dhigayna shaqadeena koowaad waxaan halkan ugu baaqayaa xildhibaanada iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed in loo midoobo danta guud ee dalka lana aamino in gudcurkii uu isu bedelayo ilays mudanayaal iyo marweyn waxaan ugu dambeyntii xildhibaanada aqalka sare uga mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha sida hufan ee aad ula shaqaysaan dowladda waxaana mar kale idinka codsanayaa inaad meel marisaan hindis sharciyeedyada lana samaysataan xiriir wada shaqayn ee dhow aqalka hoose si ay noogu fududaadaan hadafyada waaweyn oo halkan aan idinkugu sheegay waxaan ilaahay idinkaga baryayaa idinkoo dhan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed in kalfadhigani uu noqdo kii ugu mira dhalka badnaa ummadda Soomaaliyeedna ku hagi lahaa dariiq horumar hufan leh ugu dambeyntii anigoo ka wakiila madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan halkan ka soo jeedinayaa in kalfadhigii shanaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu furan yahay maanta oo ay taariikhdu tahay 1 Abriil 2019 waa mahadsantiin